gudihiina aan ku aragnay laakiin si goonina u fiirin aan jecelnahay marka saamar walba ka hadlo horta cunug caruur badan oo Ilaahayna siiyay alxamdulillah in aan barano cunug walba dabeecadiisa iyo muxuu jecel yahay iyo maxay jeceshahay maxay nacabtaa marka hada cunug walba si gooni focus u saarno waxay naga caawinaysaa sida cunugaas maskaxdiisana u ilaalin lahayn ana u tarbiyeyn lahayn ila carruurteena anaga inaan tarbiyeysano waaye maskaxdoodana anaga ku ilaalinayno oon ku talax tagaynin oo cunuga ugu wanaagsan oo birito mustaqbal fiican leh saa u soo saarno waa inaa cunug kasta xaafadda noo joogo si gooni marka maanta midkaan noo wado waxaa waaye waa cunug orod badan fariisanaynin hadal badan jeclaan xaafad inuu howl ka qabto jeclaan inuu fariisto oo wax barto hadal iyo orod iyo kala haad cunuga adhahna wuu fudud yahay cunugaas raba maanta inaan ka hadalno hadduu cunugaas ku joogo cunug kale asna iska aamusan shub iska jeclin oo miskiin kuwa adhahno duu ku joogo cunugaas xuquuqdiisa lagu tumana marka kana hadda focus ka saarayna midka orodka badal maxaa ku sameynaa wala cunug walba idadiisa ku xiran tahay marka hadoo weyn yahay hadoo yar yahay saa ula dhaqmi lahayn number 2 horta cunugaas maadaama uu challenge badan yahay waxa uu jecel yahay waxa fan maadaama orodka uu jecel yahay marka hadoo yar yahay waxa u qabanaynaa saacadaas si aad qofkii reey casharkaas lagu soo diray hadi iyo casharkaas waqtiga ku keenay lahayd cunugaas ugu raay karna haduu qalad naga galo waxa ugu hore ku sameynayno waxa waaye haduu yar yahay time out haduu laakiin xawaa dhaxdhaxaad iska yahayna qolkaas iga gal qolka telefoon iyo iPad iyo waxa ugu horeeyay TV sababta adduunku ugu nacib yahay inuu cunugaas kaligiis noqdo maadaama adduunku ugu nacib yahay inuu kaligiis noqdo taasa ka faa'iideysanana qolkiisa u direena ama qolkeeda u direena daqiiqada u qabanayna cunug walba iyo sanadkiisa daqiiqad loo qabtaa marka ka soo baxana waxay dhibaato weyn u dareemaa ma jeclo ama iidan ma jecla ma jecla laakiin cunuga kale oo kala jeclana inuu iska fadhi jecel dhibaato dhib badan jeclaan da qolka u dirto canaan ma taas ma noqonays canaantiisa ma cunug walba dabeecadiisa iyo aqligiisa isoo u arko kula dhaqano anakoona ilaalinayno wax ugu horeeyo oo ka dhigayno number 1 ee taa maskaxda insha Allah taas mar labaad idinku soo celiya subscribe gareeya share gareeya like gareeya assalamu alaykum